ma tagtay magaalo aadan horey u tagin ma u baahatay hotel ma u baahatay banki aad lacag kala baxdo ma u baahatay saldhig booliis iyo weliba wixii la mid ah maanta muuqaalkan aan kuu soo gudbin doonaa application si yar kuu tilmaamayo meesha aad u baahan tahay tusaale banki saldhig booliis jaamacad iyo iskuul wixii la mid ah weliba wuxuu kuu sii sheegayaa jidkii aad u mar lahayd kaba sii daran wuxuu kuu sii sheegayaa inta daqiiqa aad u socon lahayd haddii aad lugeynayso haddii aad gaari raaxa wadato iyo weliba haddii aad raacayso gawaarida dadweynaha ee BL-ka halkan ayaan kuu soo gudbin doonaa ee ku soo dhawaada channelka application kani waxa lagu magacaabaa Live Street View waxaad kala soo degi kartaa Play Store-ka haddii aad subscriber tahay description-ka fiir linkigiisa haddii aad follower tahay dhanka Facebook-gana qoraalkan korkiisa akhri halkaas aad ka heli kartaa linkiga aad ku soo download garaysanay application kani si arintaas inta badan baad intuso hadeertaan la soo baxo mobilkayga okay wala soo baxay application-ka aad tagaysaa Live Street View si hore ku sheegay once haddii aad click ku siisaa mar qayb fara badan ayuu leeyahay laakiin ana qaybta muhiimada ka leena waxay tahay inaad ku dhufato nearby meesha qoranteed kadib wuxuu ku soo saari doonaa hospital hotel masaajid ila boor banki geedka lacagta laga baxay ATM xafiiska boostada iskuul wixii la mid kulli wixii aad rabto ayaad ka soo baxsan kartaa tusaale aniga waxaan u baahanahay hotel aan ku dhufanahay Google Map ayuu isticmaalayaa waxyarna uu ku sheegayaa laakiin maalinta laga baahan waxay tahay internet oo qura waxayna ku xiran tahay waliba xabaaraha internetka hadeertan oo jeed hotel badan ayuu soo saaray City Palace Hotel Hotel Dolphin Hotel Lafween waa badan mid ka rabto oo ku qanciyo ayaa duluf ku siinaysaa no hadda aniga daxal ku dhufso Hotel Ramadan aan ku dhufanaa kadib meesha mid ku qoran yahay calaamada aad taabanaysaa wuxuu ogaanayaa meesha joogto wuxuu fiirinayaa jidka mari karto iyo waliba intaas oo dhan okay hadartan uu soo saaray sida idin muuqato aniga waxaan joogaa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir wuxuu leeyahay meeshaan ka baxaysaa meesha oo dhibcadhibaha ku qorantahay waa hadii aad weynayso wuxuu ku dhaafay 45 daqiiqo ay ku qaadanaysaa suppose gaariga mootaa waa kana waa u jeedaan wuxuu qaadan kartaa wadii aad gaari ah wadato 17 daqiiqo jidka jamhuuriya xaafadana ay ka dhaxbaysa lightos sidoo kale waxa sameey kartaa inaad inta soo baxdo aad sanca marto fagax ka sii baxdo toos jidka soo xoolahaysanayo aad ku dhacdo halkaasina waa u mari kartaa laakiin wuxuu ku sii qashay inta gadaal u sii baxo xaawo casra ka soo jiray jidkaasna waa mari kartaa saddex jid ayuu ku soo sheegaya waliba haddana wuxuu ku sii kala sheegaya jid walba inta daqiiqo uu ka yaryahay kasoo kan noqo waxa u baahanaa leeyahay iskoola u baahanaa leeyahay hadda waxaan u baahanahay hotel waxa u baahanahay university ama jaamacad iskaga qafo waraadinaya jaamacadaha ayuu soo kala saaraya waaw jaamacadda Soomaaliya u soo warmarshay waa jaamacadda u sheegay jaamacadda waa ku dhufanaysaa University of Somalia gaariyan wata si leedahay kadib wuxuu ku sheegayaa waaw 3 daqiiqo u soconaysaa kii lambar 4 ayuu noo soo tilmaamay qaybta baar u xarim laakiin no problem haddana waxa si raadin kartaa iskuul raadin kartaa banki salaam oo ku dhufano banki ku dhufano waraadina banki dhexe Soomaaliya International Bank of Somalia Salam Bank waxa soo idin waa ku dhufanaysaa oo qura sidoo kale haddii aad u baahan tahay masaajid haddii aad u baahan tahay isbitaal wixii la hadda isbitaal ku dhufano isbitaalkii ugu dhow waxaad dirtaan waxa rajeenayaa waaba kana daryeel specialist hospital Hayat Arafat Keysani hospital kana ugu dhow Keysani isbitaal Keysani oo ii sheegay gaariyan wata waa 7 daqiiqo qura ay u qaadanaysaa jidkana soo baxa jidka laamiga ku dhacaysa kadib 7 daqiiqo ay sii soconaysaa waxa rajeenayaa application kani inuu noqon doono application aad iyo aad ku anfaco insha Allah haddii aad ku soo biirayso channelkeena fadlan like saar dhanka Facebook-ga waliba dhanka YouTube-keena subscribe ka iloobi waa Abdulbaas Xasan Nuur oo idin le warmaysidee wanaagga ka haro wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh